wasiir ku-xigeenka gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa maanta soo kormeeray dhismaha garoonka weyn ee kubadda cagta ee magaalada Oodweyne. Garoonkaas oo ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka maalgelisay miisaaniyadda qaranka, isla markaasna uu dhismihiisu gabagaba ku dhow yahay, ayaa waxa uu horantii ka warbixiyay duqa degmada Oodweyne Ibraahim Qaasar Rooble, qaar ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka iyo weliba Suldaan Axmed Xuseen Libaax oo ku hadlayay afka shirkaddii dhisay garoonkan. Garoonkan aynu joogno oo ah garoonkii kubadda cagta degmada Oodweyne oo uu dhagax dhigay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. runtii garoonkan wuxuu ka mid noqon doonaa garoomada ugu waaweyn Soomaaliland. runtii meel wanaagsan buu marayaa, waxaanu sugaynaa dhamaystirkiisa insha Allah. aad iyo aad baan madaxweynaha uga mahad celinaynaa. waxaan filayaa inay ku rayn doonto dhalinyarada gobolkan Daadmareed ee madaxweynuhu niyaayirka iyo himilooyinka iyo rajada u muujiyay. waxaan doonaynaa inuu nooga warbixiyo shirkaddii dhisay Suldaan Axmed Xuseen Libaax oo gacanta ku hayo weli aanu ka dhamaanin, bal warbixin naga siiyo ayaan doonaynaa haddii la ka dhigo. garoonkani sanadkii 19 ayaa loo geliyay wasaaradda ciyaaruhu gelisay, madaxweynahana dhameeyay. madaxweynahana waa uga abaal celinaynaa. garoon wada dhagax ah 168 kaawadood oo shubi ku jiraan oo 2 mitir iyo 20 dhagax ah iyo 20 shuba 2 mitir iyo 40 ka sare u ah. wareegiisuna yahay 740 isku wareega. laba jiha waa 200 mitir, laba jihana waa 170 mitir. sidaasaan ku dhamaynay, lixaad ku dhisnay, waa halka yaala. qofkii arkaana dee ula yaabaya oo 100 sano 200 sano waxba ka dhimin maayaan. marka sisteemadii kalma wadhay telebisiyo iyo wixii dambe haddii aan la yiraahdo taasna sanadka la gelinaya haddii aan la yiraahdo wax ka dhiman. madaxweynaha waa uga mahad celinaa. gudoomiyaha gobolka Daadmareed Maxamed Diiriye Xayd Daljir iyo wasiir ku-xigeenka gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdinaasir Caydiid ayaa geestooda bogaadiyay sida uu u socday dhismaha garoonkani, iyagoo sidoo kalena sheegay sida uu garoonkani wax uga tari doono baahiyaha ciyaareed ee dhalinyarada gobolka Daadmareed. waxa aynu joognaa garoonkii kubadda cagta ee gobolka Daadmareed. garoonkaas oo aad iyo aad aan maalintii qandaraaskiisa la bixinayna aan goobjoog ka ahaa, kana mid ahaa dadkii qandaraaska bixiyay. waxaynu maanta halkan ku arkaynaa farxad inaynu garoonkii aad iyo aad u dhisan aynu arkayno. waxa kaloo farxad inoo ah gobolkan oo gobolkii sportiga noqday oo koobkii Soomaaliland gacanta ku haya. aad iyo aadna waxaan u jecel lahay ka xukuumad ahaan ka wasaaradda dakhil ahaan in ciyaaraha gobolada dambe lagu qabto gobolkan Daadmareed. kolley garoonkan waxa iga muuqata lix jecel badan in lagu dhisay oo si lix jecel loo dhisay. weli maan ku arag garoonsan loo dhisay Soomaaliland kuma arag deerkiisa oo qurasa loo dhisay, deer wada dhagaxa oo wada shuba. madaxweynuhu aad buu mahadsan yahay, wax qabad balaaran ka muuqda. haddaba ciyaaraha gobolada si loogu qabto maadaama uu han weyntiin in ciyaaraha gobolada lagu qabto, waxa ay u taalaa suldaanka iyo shirkadiisa si ay u dhameystiraan. Sayid Maxamed Cumar, Sayid Darwiish, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Oodweyne.